iyadoo shalayto garoonka diyaaradaha Ismaaciil Mire International Airport ay ka soo degtay diyaarad wada wafti ballaaran oo ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya oo hogaaminayo wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdilaahi Bidaan Warsame xildhibaano ka tirsan labada gole ee dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynihii hore Khaatimo Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheel iyo ganacsato ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa diyaaradaas imaanshiyaheeda waxa qayb lixaad ka qaatay isla markaana bixiyay kharashka diyaaraddu ku timid deegaanka Buuhoodle ganacsade Maxamuud Yuusuf Guri oo kamid ah ganacsada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho. Buuhoodle idin salaameynaa runtii waqtigan maanta lagu jiro oo aad ogtihiin iyo dhibaatooyinka jira waxaan maanta soo gaadhnay magaalada Buuhoodle oo ay ka timid qaylo dhalaan khusaysa arrimaha caafimaadka ama xanuunkan safmarka ah oo COVID-19 waxaana soo gaadhay cabasho odayaasha dhaqanka guddiyada magaalada ka jira ay ka cabanayaan dhibaato gaar u ah magaalada Buuhoodle oo dadweyne tiro badan ay isugu yimaadeen kuna taalla meel xuduud ah oo dad badan isu soo galaan cabashada ka bacdi markii madaxda federaalka oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ugu horeeyay ay dhageysteen wuxuu ra'iisul wasaaruhu amray in loo raro agab caafimaad intii tamar ah oo laga hortago bal waxyaabaha ka jira deegaankan sida deegaanada kale ee Soomaaliya meelo ka badan loo geeyay agabka caafimaadka bilowgiisii baan wadnaa idinku filla waa ognahay baahida meesha ka jirta dhibaatada jirta dadku say isugu yimaadeen meeshaan oo dad tiro badan ama dadweyne tiro badan magaalo ah dawladda federaalka ka sokow xubnaha ka tirsan dawladda federaalka ee wasiirku ugu horeeyo ee xildhibaanadu ka mid yihiin generaalku ka mid yahay oo isu xilqaamay inay maxay ahaaytay haddii alla kuu sama ogol yahay codsigii idinka yimi oo annagoo odayaashii deegaankan ka tirsanay xamar joogay ahayn aanu haddii midkeeda leeyahay u gudbino u geynay inay maxay ahaaytay ka qabtaan waxa ay maanta midhadhalkeedii kan tahay waxaan kaloo rabaa inaanu mahad celiyo dawladdu la soo siisay qalab haddii alla kuu sama ogol yahay diyaaraddan aanu ku keennayna haddii midkeeda leeyahay dad isxilqaamay baa maxay ahaaytay haddii alla kuu sameeyo Maxamed Yuusuf kan inay la socda maantaba kharashkeeda bixiyay isagana waxaanu leeyahay ilaahay xasanaadka maxay ahayd miisaanka aakhiro xasanaadka kuugu waxeeyo